daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub السلام عليكم عقد شراب ayuu afka ku qabtay markii uu ka qaaday ayuu soo eegay isagoo gacanta midig ku haya dhaladii si qabow ayuu u yiri sharaabkan maad garanaysaa waxa laga sameeyay wadnaha oo afka jooga ay madaxa aayar ruuxday cinab ayaa ku sawiran laakiin waxa uu yahay maad garanaysaa way yaaban tahay waa biyo soodho leh kadibna dhadhan cinab loo sameeyay midabkan casna wuxuu ka yimid baytaraaf indha maran ayay ku eegaysaa inta uu afka si deggan isaga masaxay ayuu gacantiisa bidix kor u soo qaaday telefoonkiisa shaashada ballaaran ee agtiisa ku nasanaya korkiisa ayuu waxoogaa salaaxay dhankeeda ayuu u soo jeediyey markaas ayuu raaciyey miyaad garanaysaa qofkaas gabadha madow oo si yar u dhoola caddaynaysa ayaa kamarada soo eegaysa maya ayay u celisay waa Claudia ayuu yidhi gabadh aanu aad isku naqaano waxay u dhalatay dalka Tansaaniya waddankana 2 jeer ayay timid oo aan marti qaaday bal qiyaas shaqadeeda indhaha ayaa raxleeyay jawaab ay ku daaday ayuu raagsaday wuu sii watay waa gudoomiyaha ururka COA ayuu ku yiri ururkaad adigu sheegatay in aad gudoomiyihiisa tahay wadnaha ka siibtay calooshana waa la dhex yaacay carabkii hadli lahaa ayaa laf noqday laakiin najaxay caawa mid ayaa ii caddaatay hii ayaa ka soo baxday waxay ii caddaatay ayuu yiri in aad tahay qof daacad ah candhuufteedii ayay ku saxatay biyo ayuu u soo fidiyey mar dambe oo ay qoficii joojisay ayay ku tiri yaa caawa waxaan ogaaday ayuu yidhi in aad tahay qof daacad ah qof laysku hadlayn karo wax kasta oo qof dumar ah lagu raaco waad leedahay keliya tan caawa aan ogaaday ayaa iga maqnayd u kaadi bal horta oo intaas oo dhan miyaad ogid inaan been kuu sheegayo nacam ayuu yidhi oo markaana adigoo i fahansan ayaa meelaha iska qosqoslayay sow maaha quruxdaada ayaa isakhraamisay xabi ayuu yidhi intaas waxba ma aha waaniga hoogay ayay tiri waxaan rabaa inaan ku guursado waa ka yidhi yaa waa ta tiri si dhaqso ah weliba ayuu ku hadal celiyey waxay tiri inaan kuye reerkay soo bar horta waa reerku way ku yaqaanaane lagu sheegi maaye miyaad isoo dooni ayay tiri miyaan kula baxsan lahaa kuye dee maye waan yacni miyaad i weydiinba in aan diyaar ahay bilay waan ku diidaa indhahaagu wax kale ayay ii sheegayaan waa ka yidhi cawayskii qosol iyo kagacal saa'id ah ayaa lagu dhammaystay farxadna waa la hooyatay war weyn oo garan laadahay cid ay la wadaagta ayay la seexatay subaxii ayay hooyadeed ku salaantay asxaabteediina ku xigsiisay waa la isla oogsaday dharaaro farxadeed ayaa la galay isagii ayay waalidkeedii hor keentay waa la ansixiyey maadaama uu safar u baxayo maalmo gudahooda ayaa ballantii meherka laga dhigay reerihii ayaa isbartay diyaargarowgii kalena uu baal socdaa ayaa mashquul ah ayay gashay hoodo iyo sahra ayaa dhankooda ka howlgalay maalintii meherka ayaa berri ah maantana waxaa loogu xinaynayaa guriga najax hooda waa loo dhameeyey oo bannaanka ayay u baxday daaqadda qolka hoosteeda ay soobla'aan u taagan tahay sahra ayaa iyaduna iminka ka kacday kursiga loogu shaqaynayey si ay najax u fadhiisato markeedii naatiyahooda meede ayay tidhi intii aanay qolka bannaanka uga soo bixin dhanka bidix ayay u dhaqaaqday waxayna aragtay hooda oo taagan keligeed hoosna u ooynaysa ilintii ayay degdeg isaga masaxday markay aragtay sahra oo ku soo socota sahra ayaa garabka gacanta ka saartay taabasho bannaanka u soo saartay baroor aanay filanayn cod aan si fiican loo fahmayn ayay ku geeraartay wallaahi inaanan ka xumayn saaxiibaday arooskeeda waxaan ka jeclahayna ma jiro in ay faraxsanaato laakiin mar baa layga soo boodayaa bal maxaa murugadayda iyo farxaddeeda isku xidhay miyaanan labadayduba faraxsanaan karin maxaa dooqa nin keliya noo wadageliyey midda kale ma rabo in aan u sheego in aan isaga iyada darteed u diiday waxaasoo dhan ayaa laabta iga buuxa waan cabursanahay sahre oo dhabar ku salaaxaysa ayaa hadalka ku soo koobaysa waa runtaahuuna iminkana waa arooskeedii ma rabo inay ogaato arrintan xitaa hadhow sidaas in aynu ku ilowno ayaynu doonaynaa iga ballanqaad sahray walaal in aadan arrinkan weligaa u sheegay najax sahra oo aan jawaabin ayaa dareentay dhaqdhaqaaqa dhabarkooda way jalleecday waa wejigii najax oo daaqadda soo taagan zahra oo dhanka najax sii eegaysa ayaa ku naxday najax
hoodo oo aan dhan kale eegin ayaa dhinac u dhaqaaqday. Najax oo hadal kale laga sugayay ayaa weji madhan halkan la soo taagan si qabuuna ugu celisay. maxaa meesha idin taagay baanaye sheeko boqolaan idin hayaaye bal soo gala. way dhaqaaqday. waa ficil naqas badan ka soo tuuray Saare iyo Hooda oo iyada hadalku meel duruqsan ka soo gaarayay iyada oo dibnaha been u sheegaysa ayay soo hor fadhiisatay Najax oo kursiga xinaha loogu mariyay si dhiibsan dhabarka u qotominaysa. naade ta dhacday maad ogtiin hee ay mar kaliya la soo boodeen. naade waa kii madaxweynuhu maqnaa aynu ogeyn. wuu soo hadlay wuxuu yidhi inankayga meherkiisa ka maqnaan kari maaye halla isugo intaan safarka ka soo noqonayo. Hoodo ma ahee ilaa goorma. Najax 2 toddobaad kadib ayuu imanayaa ayay tiri Zahra oo dee ma meherka beri ah ayaa la baajinayaa. Najax ayaa tiri ma amarka madaxweynaha ayaa diidi kartaa xabiibi yaan lagu xidhin. qosol ayaa xigay aamusnaan degdeg ah sidoo kale qof bagaarkiisa ayuu u foofay. qadar ilbiriqsiya ah Zahra oo aan rabin in la kala aamusnaado ayaa soo tuurtay oo dee hadda maxaynu la xinaysanaynaa halkaas oo ay aniga weli la iima bilaabin bee idinku iska xaragooda ay ka heshay. Najax sababo ay ku fakata ayay markiiba soo bandhigtay labadoodiina halka ay kaga dhaqaajisay. weli cid uma sheegine dadka ha iga horeynina ayay u dhaaftay. dhankii uu qalbigeedu ka xigay ayay u dhaqaaqday. weji gabax indho aan libiqsanayn iyo qoor aan dhaqaaq lahayn ayay wadooyinka magaalada la dhex qaaday kaabada guriga isagoo oo cadi la fadhiya gacanta bidixna jilibka bidix duldhigay ayay ku soo hagaagtay. wejiga aan fariirsan ayuu ku qaabilay. xabiib maxaa ku helay ayuu salaan uga dhigay. hee qalbi miyaan laga soo booqan karin. alle hadalka kuma dhibin. salka ayuu dhinac u hinjiyey. agtiisa ayay sidiisa oo kale u fadhiisatay. hadalka ayay dusha ka xaadhay. ujeeddada booqashada ayay haatan u dhaadhacday isaga. aabba horta goormuu imanayaa. uuna aabba waxa u hadhsan 5 dal oo kale markaa beryahan ma imanayo ilaa goorma qiyaastii ayay tiri. cadigii ayuu dhinaciisa dhigay gacanta afka mariyey hortiisa isagoo sii eegaya ayuu weydiiyey maxaa soo kordhay. iyada oo aad moodo inay isku dhagax eegayaan ayuu celisay waxba dee waan ku weydiinayaa. ugu yaraan 3 wiig ayuu sii maqnaanayaa. maanta ayuu Maleeshiya ka dhoofayay. qalbi haddaba i dhegayso haddaanu haweennahay waxyaaba aan weynayn ayaa micno noo samaynaya. dee anna waxaan ahay inan la soo doonanayo oo waxaan rabaa inaad noqoto maalin weyn. marka haddii aan aabba sugna ka warran ma adigaa sidaa rabaa ayuu ku yidhi. haa ayay tiri hadda waa bil ku dhowaad wakhti safarkiisa ka hadhay. waa si wanaagsan anna waan kugu raacay. maxaa tidhi way heshay wixii ay ratay. qorshe bilow ah ay xadhiggiisa soohiddiisa bilowday. waxa aanu sugaynaa inta uu aabbihii dalka ku soo noqonayo si uga qayb qaato. sidaas ayaannu ku heshiinay anigiiyo isaguba. waa sida ay waalidkeeda ugu dhigtay in ay aqbalaana waxaan ahayni meesha ma yaalo. wakhti waxaan haystaa inta aanu odaygu soo noqon 3 toddobaad. waa sida ay nafteeda ku tidhi waa wakhti kooban balse waa suurtagal ayay hoos u tidhi. wadahadalkooda khadka teleefonka ayuu ka bilowday. subaxii markii ay toostay habeenkii hurdada ka hor 2 jeerba way joojisay in ay wacdo. waan mashquulay saaki iyo waan gam'ay anigoo filayn ayay sababo uga dhigtay. sidaas ayay maalmo ku waday in ay fariimaha kala daahdo. jawaabaha ayay ku xigsiisay. waxay siisay wakhti uu madadaalo kale ku raadsado. asxaabtiisa ayay ku tala gashay in uu ku bixiyo wakhtigii uu labadooda siin jiray isagoo oo soo waca mooyaane way joojisay inay kaga horrayso. kulankoodii joogtada ahaa ayay ku soo ururisay 3 habeen toddobaadkii. 3 habeen oo si qoto dheer u qorshaysan. habeenkii koowaad way bilowday. horta hablaha aanu asxaabta nahay weli maaniskiin baray ayay tiri. way og tahay in aanay weli isbarin. may ayuu si qabow u yidhi. alla oo weli maad arag bashow ayay u raacisay iyada oo wax kale ka raadinaysa. maye dee waan arkay waa Hoodo oo waa inanka u doonan iyo inanta kale way la heshay. dabin ay u dhigtay ayaa gundaha jaray. muu sharaysan su'aalaha iyaduna way ka gudubtay. habeenkii labaad ayay sheekada dhex taal uga dhigtay asxaabteeda iyo sida ay isugu barteen intay ku jiraan iyo siday isugu xidhan yihiin. mar kasta waxay ku nasanaysay magaca Hoodo. wax badan ugamay sheegin Sahra. Hoodana wanaaggeeda ayay dhadhansiisay. waxay u sheegtay in ay gashaanti tahay oo aanay cidna u doonanayn. intaas markii ay tidhi ayuu wejigiisu isbeddelay. way ku raaxaysatay 1000 goor oo ay Hoodo iyadu ka saxnaysanayd ayay uga sheekaysay. kuwo kale oo dabeecaddeeda iyo furfurnaanshaha Hoodo ka warramaya ayay qulaamisay si aan la dareemayn. inta ay hawshaas iyadu ay waddo waxay si gaar ah u dalbatay waxbarashada heerka sare ee jaamacadda caalamiga ee Kampala. hooyadeedna si guud mar ah ayay ugu sheegtay inay xiisaynayso waxbarasho meeshaas ah. ayaamaha ayaa ku dhaafay sidii ay rabtay. toddobaadkii hal mar ayay Hoodo iyo Sahra la kulantaa.
markaana sheekada meherka soo socda ma dhaafsiisna isaga ayay aragtaa wax aan dantooda ahayn uga warantaa qof aan la xiisayn karin ayay isaga dhigtay hadalkoodii ayaa ku soo ururay maalintii hal mar iyada oo ka xun ay haddana ku faraxday madaxweynihii ayaa dhankiisa isaguna baaqday safarkiisii ayaa intii la sugayay ka dheeraaday way ku faraxsan tahay taasi ayaa ku sintay jawaab ay ka sugaysay oo dhanka jaamacadda uga timiday hoodo iyo sahra oo aan u bogin xidhiir la'aanteeda ayaa dhowr jeer su'aalo ku ganay in aanay waxba jirin ayay qosol uga dhex laaqdaa way rumaystaan sidii ay rabtay ayuu isaguna noqday qof dana kala yeeshay oo aan haleelin kulankooda caadiga ahaa maxkamaha ayay u haysaa xaaladda waa khamiis berrina waa jimce waa diyaargalow berrina fulin bil ayaa ka soo wareegtay maalintii meherkoodu qabsoomi lahaa oori farxad ku nool maalmaha la qaybsanaysa kii ay adduunka ugu jeclayd ayay maanta ahaan lahayd balse keligeed ayay ciil la yaraatay dareen ay muddadaas dabool saaraysay ayaa xadhkaha soo goostay waxay miisaanka saartay halkay caawa jiifi lahayd iyo barta ay iminka gulgulanayso waxay isweydiisay sababta ay sidan u samaynayso jawaab waafi ah ayay isa siisaa si kasta oo ay u xanuun kulushahay runta ayay ku qanacdaa iminka in aanay joogin meel laga soo noqdo ayay og tahay berina ay xidhiidhkan soo afjari doonto ayay nafta u sheegtay qalbi budo ah iyo indho burburay ayay hurdo aan badnay ku kabtay zahra ayaa subaxnimadii la soo xidhiidhay xaggeed ka dhacday miyaadna nacday naahaaye iska waran hoodana ka waran waannu wada joognaaya xaggeed joogtaa aannu ku nimaadne anaa hadhow idiin dhimanaya iska jooga ayay ku tidhi hawsha sugaysa ayaa ka weyn kulanka ay doonayaan dhankiisa ayay u dhaqaaqday bartii ay kula ballantay ayay timid isaga oo sii taagan candhuuf culus ayay liqday markii ay aragtay sida uu u sugayo baabuurka ayuu soo fuulay dhinaceedana dhoolla caddayn ballaadhan la soo fadhiistay waran xabiibe ayuu ku